السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامجka Amuraha Haweenka. barnaamijka Amuraha Haweenka waa mid toddobaadka xilligan oo kala aad ka daawataan warbaahiyaha Shabeelle. barnaamijka maanta waxaa marti inoo ah gudoomiyaha Gogoldhig Media Production Company gudoomiye Iqra Cabdullaahi Guure. kusoo dhawow. waan dhawahay aad u mahadsantihiin TV-ga iyo idaacadda Shabeelle. xaasatan shukri iyo barnaamijka haweenka iyo casuuntay aad u mahadsantahay. sidoo kale anigana waan kaaga mahad celinayaa gudoomiyaha waqtiga ay qaaliga ah inoo soo hurtay. waxaad iiga sheekaysaa waqtigii Gogoldhig Media la aasaasay iyo taariikh inta leeg uu leeyahay. xaruntan Gogoldhig Media Production Company waxaa la aasaasay 1 December 2018 waxaa laga joogaa muddo 2 sano iyo jajab ah. dhawaan ayay marka u dabaaldegnay xafladda sanad guuradeena labaad ee Gogoldhig Media Production Company. fikradda ah in la sameeyo company ay ka shaqeeyaan gabdhaha marmaana ah goorma ay kugu dhalatay? fikraddan waxay ugu dhalatay yani markaan aragnay inay jirto baahi banaan oo dumarka dhankooda ka banaan. sida ogtahay waagii horeeto waxa aad u yaraa ama jirinba in la helo gabar wax duubto. dumarkan waxay aad ugu baahan yihiin inay helaan gabar wax duubto. waa sababta ugu dhalisay in aasaasno xaruntan Gogoldhig Media Production Company si aan u daboolno baahida dumarka ee dhanka kaamirada. okay, waa mahadsantahay Iqra. baahi intee leeg ay qabeen markii hore dumarka sida hadda sheegtayba? aad iyo aad ruuxantii bulshada waxay qabeen baahi aad u weyn ay qabeen. baahiyaha ay qabeen waxaa kamid ah waxaa jiraan dad oo wadaada ah oo qabsadaan aroosyo kale ma jeclo markii inuu rag soof oo dhexgala ma jeclo. sidoo kalena saa ogtaa dumarka arooska markay tagaan yani waxay jecelin xorriyadooda inay iska qaataan inay iska baashaalaan. waxaa laga yaabaa qaab labiskooda xitaa inay wax ka bedelaan laga yaabaa. marka xoogaa wiil markuu duubaa iyo markay gabar duubays farqi weyn u dhaxeeyo. maxaa yeelay gabadha aroosadoo kaleeta haddii ay wax ka qaldamaan ama wax si ka noqdaan yani gabadhu waxay awood u leedahay inay gabadha u tagto wax ka toosiso wax ka saxdo dhahdo abaayta kaa qaldan. laakiin wiilka maadaama uu yahay rag waxaa laga yaabaa inuu ka xishoodo arrintaas iska aamuso duwistiisa iska sii wato. gabadhii xitaa waxaa laga yaabaa xitaa baahiyo gaar ah ay qabto gabadha u dasheegi karto inaysan wiilku dan sheegan karin. marka bulshadu waxay qabeen baahiyo badan ay qabeen waana sababta ugu dhalisay in aasaasno xaruntan Gogoldhig Media Production. okay, waa mahadsantahay. markii la soo duubo fiidiyoga dabcan waxaan ognahay anagaba fiidiyo markii la duubo waxa editin karaya wiilal. marka adiga soo duubtan yaa idin editin karaya? okay, waa su'aal muhiim ah runtii. aniga aroosyada markaa soo duubno aniga edit gareysano gabdhaheena edit gareysano. maxaa yeelay marka hore baahida yani oo aniga u furan meesha kaliya meen in aan wax duubno oo gabdho badan cameraman oo TV way jiraan. laakiin baahida meesha u furna waxay ahayd in arooskiina soo duubno shaqadii editkina aan qabano. maxaa yeelay aaminsanahay in wax la duubo waxa ka dhib badan in wax la edit gareeyo. maxaa yeelay qofku wax edit gareena ceebo badan u arki kara oo markuu duubayo xitaa uusan arki karin. marka Gogoldhig ahaan aroos walba oo soo duubno gabdhaheena edit gareeyaan wax wiil oo la share gareeno ma jiro. marka adiga waxaa tiin koox gabdhaha isku xiran. aad iyo aad Gogoldhig Media Production Company waa shirkad waxaan u shaqeeyaan gabdho iyo wiilal kala duwan u shaqeeyaan oo ku takhasuseen kaamirada iyo editinka. wiilashoo kale waxay soo duubaan qaybta oo meherka kale soo duubaan halka gabdhaha ay soo duubaan arooska. sida ogtahay gabar meher intay tagto ma duubi karto. marka dhankaas xoogaa rag xijina laakiin dhankan la xariiro qaybtan arooska galabtii dumarka duubo sidoo kalena gabdhaha edit gareeyo. okay, waxyaabaha ay qabto company-gan maxaa kamid ah? company-ga hawsha ugu weyn oo qabto waxaa duubista aroosyada. waxaa duubnaa kala xafladaha qalin jabinta. waxaa kaloo sameynaa wax la dhaho xayeysiisyo sameynaa. waxaa intaas noo sii dheer oo sameynaa wax la dhaho boorarka sameynaa aroosyada boorarka caadiga ganacsiyada invitationada sameynaa business kaarada sameynaa ID kaarada sameynaa wax alaalo wixii la xiriiro daabacada. waa sameeysaa gabdhaha ka shaqo bilaabayo company-gan ma jiraan shuruudo lagu xiro? aad iyo aad shirkad walba waxay leedahay shuruudo iyo waxay leedahay sharciyo iyo heshiisyo leedahay. Gogoldhigna shirkadahaas ay kamid tahay waxay leedahay heshiisyo iyo sharciyo oo qofka markuu ku soo biirayo loo la tacaamulo. waxaan ugu waaweyn yani amaanada qofka inuu qofka si wanaagsan customer-ka ugu adeego uu qanciyo uu mar walba shaqadiisa u ahaado qof daacad ah.
tusaale ahaan markaan aniga idin imaado oo ay shaqo idinka soo doonto waxa ugu horeysa oo la weydiinayo maxay tahay run ahaantii qof walba markuu shaqo soo doonto yani magaalada hadda way isbedeshay oo waxaa la dhahaa shaqooyinka garab waa la isku siiyaa laakiin xaqiiqatan qofkii rumaysanaayo gogolig inta ka shaqeysa maahan in garab wax lagu siiye maahan qaar kamida waxaa waaye ardaydii wax aa barnay oo noola shaqeeyaan qaarna waa dad magaalada naga soo galeen ma jiro qof aa shaqo ku siina garab waaye adeeraa keenay qabiil waaye iyo wax lamid ah qof walba meesha wuxuu ku imaada aqoontiisa daacadnimadiisa kartidiisa iyo waxqabadka uu jecel yahay inuu bulshada u qabto okay marka qofka oo imaado oo shaqadii laga aqbalo ma waxa la siiyaa bilal trading ah 2 bil 3 bil oo si free ama trading uu ku qaadanayo kadib uu shaqo bilaabo mise atratuur toos ayaa loo shaqo geliyo mushaari laga dhigaa maya sidoo sharciga yahay qof markuu meel ku soo biiro wuxuu qaadanaa waxa loo training inuu la qabsado shaqadii qaadkii loo qabanayay iyo nidaamkeedii marka wuxuu qaadanaa bilo training uu qaadanaa bilo training ko kasoo gudbo kadibna wuxuu noqonaa qof oo hore u socdo hore u shaqo galo okay ma jiraan caqabadaha kala kulantay kaamiro wamanada adiga ama kuwa kale gabdhaha wax duubo aad iyo aad wallahi wax walba caqabaday leeyihiin oo wax aan caqabad lahayn wax aan jirin waaye caqabada ugu weyn oo yani bulshada kala soo kulanay waxa dhihi karaa maanta waa kasoo gudubteen waqti waxaana soo mar runtii aad nool kula yaabo markiina la arko inaa kaamiro wadano oo haddana gabdho siinahnay waqti waxaa jira bulshada xitaa inay nala qabsadaan ee adkeed ama ayna aaminaan maanta waa kasoo gudubna alxamdulilah waxyaabaha aad ku cajiibka waxaa kamid a oo maalin dhexaasa aa la kulmay aroos aa duuweynayaa wiil banaanka jooga waxaa la dhahay gabdhaa duuway arooskan wiilkii xaqiiqatan wuu rumayso waaye ilaa aniga leewac banaanka imaada oo dhahay aniga arooskan duuweyno wuu rumayso waaye yani wuxuu dhahay impossible oo dha wili ma arkin oo dhahay gabdho wax duuwaayo marka waxaa dhahnay hadda kaamirada yartaa ku shaqeynayna xitaa daroona ku shaqeynaa dhahday wax walba ragga ay ku shaqeeyaan oo kaamira nooc walba ay tahay aan awood u leedahay inaan ku shaqeyno marka hadda waxaan maraynaa waqti bulshada aan ka helno dhiirigelin garab istaag laakiin shalay waxaa soo marna waqti bulshada xoogaa inayna fahantina aaminta ee adkeed waxyaabaha caqabadaadka kale ala kulan waxaa kamid a dhanka ragga wiilasha kaamirmaanada xiliyada aroosyada duuweyn waxaa dhacdo wiilal kaamirmaano waxaa jira hoolalka banaankooda joogaan markayna arkaan oo kale waxay dhahaan gabdho waxay duubeen wax fiican ma kasoo baxayaan beena xoogaa walwalaaqaysid camal beena isku sheegaysa beeshaas waxaa ka dareemaya xoogaa inay jirto yani yasmo ay jirto laakiin muhiimadda waxay tahay inaga nafteena ku kalsoonaanay bulshaan ugu kalsoona u adeegeynaa oo mar walba inala heshiinaya waxaa tusnaa muuqaalo horaa u duubnay aad bay ula tacajabaan mararka qaar waxay dhahaan impossible muuqaalkan yani inaa iga duubi doontiin xitaa quruxdiisa inta la tacajubaan marka maasha allah alxamdulilah hadda waqti waxaa maraynaa dhiirigelin iyo garab istaag bulshada qaybaheeda kala duwan rag iyo dumarba aan maanta ka haysano adiga shakhsiyad ahaan gudoomiye ayaa tahay adiga inaad qaadato gaambaradaada iyo ma tagtaa aroosyada ma duubtaa aad iyo aad runtii aniga madaxna waa ahay shaqaalana waa ahay maxaa yeelay mar haddaa madaxtaa waxaa rabaa shaqaaluhu inay kugu daydaan mar haddaa adiga shaqadii ka faanto waxaa waaye yani dhiirigelin ma jireyso iyo ku dhiiradaan ma jireyso aniga iqra ahaan marka laga soo tagina meesha gudoomiye ka ah waan ka shaqeeyaa wax waa u qabtaa haddii laga maarmano waa kaasa sababta yani macalinimada u noqday oo ardayda wax u baro oo gabdhaha wax u baro waxaa waaye yani in lay bedelo maadaama aniga waqtigay gaabsii galaayo yani qof kasta min aadanna waxaa fiican cilmiga u ahaa inuu qof oo siiyo oo baro si beri qofkaas isaga u bedelo oo bulshada uu wax u qabto mar walba waxaa muhiim yani xataa haddaan dhinto in bulshada loo sii adeego waxaad reebaysaa dhaxaltooy muhiim yani bulshada mar walbaba hadii baahidii aniga aada daboolay aniga meesha bini aadan aa ka baxo baahidii way soo noqonaya marka si usoo noqonin waa sababta macalinimada usii wado oo arday badanaa u training gareeyo usoo saaro hadalkaaga aan sii raacaya ma waxaa jira iskuul cod ardayda ama dad aan wax ku bartaan gabdhaha kaamiramarana aad iyo aad su-aal muhiim waaye gobolig media production company waxay leedahay qeyb la yihahdo gobolig media academy oo ah akademiyad ah ardayda wax ku barno qeybahan kala duwan kaamirada editinka iyo wixii la xiriiro imise ayaad ku bartaan marka imise bilood wallahi waqti waxaa jira 2 bil ardayda ku bari jirnay laakiin hadda ardayda codsi ka imaada oogiisa waa soo gaabin hadda 1 bil ka dhignay 1 bil ayaa ku muddo 1 bil qof kaamirada uu ku barana 1 bil wuxuu ku barana editingki hadda isku bartan 1 bil isku wada imaanay si fiican iqra waxaa jira dad aaminsan gabdhaha inaysan shaqeynin
وحلي الله gabar maxay ka shaqeynaysaa tusaale ahaan waagi gabar waxa jira gabdhaha markay jaamacadaha bartaan waxa la dhihi jiray naag wax baratay jika u dambaysa oo maxaa dareentaan adika maxaana ka aaminsantahay hadalkaas in la dhaho gabar ma shaqeyn karto gabar heerkaas ma gaari karaan gabdhaha waayo konton waayo fikradaas maxaa ka aaminsantahay runtii fikradaas way jirtaa oo dad badan way dhahaan laakiin waxa aaminsanahay runtii qofka dumarka in leedahay awood ka dheer midda ninka ragga uu leeyahay markii la dhahayo 50 waa iyo 100 waaye waa sax 50 waan hane laakiin waa xagga dhaxalka isla aniga maxaa yeelay markii dhaxal la qaybsanayo lagu talagal 50 waa iyo 100 waaye marka ragga hadii la dhaho shaqo waxbana ma dheero xaqiiqatan shaqadu waa meesha kaliya ee loo siman yahay maxaa yeelay shaqadu waxay rabtaa karti ay rabtaa wax qabad ay rabtaa aqoon bay rabtaa intiin waxa laga soo wada helaa akademiyada laga soo wada helaa ama jaamacada laga soo wada helaa fikir ahaan yani waxa la dumarka waxyaabahaas yani dadku ay ku hadlayaan ah gabar wax barashada jika u dambeysay iyo idin jabinin jikadu ceeb ma qof walba uu gala hadii maanta wiilka uu kaligiis guri ku nool yahay xitaa waxa qasab inuu jika galo oo wax karsado xitaa nafsadiisa wax u karsado marka taas fikirkaas waxa leeyahay xoogaa casri jaahiliyo ah insha Allah inaan ka gudubna rajeynayna gabdhuhu waxay u dhaxaad u yihiin runtii bulshada u dhaxaad u yihiin muuray u yihiin maxaa yeelay nin walba maanta waxa dhalay soo saar waa hooyo waaye hooyo hadii nin rag soo korisay nin ka soo saartay wax soo bartay ilaa heer yani oo shaqeystay gaarsiisay yani waa warshad wax soo saartay wax qabad fiican leh waaye marka dhankan shaqada hadii la dhaho ani waxa aaminsanahay rag iyo dumarka inay u simeeyeen aysan lahayn shaqadu yani way dhib badan tahay iyo way dhib yar tahay midna kaliya shaqada u baahan tahay aqoon dheeri ah xirfad iyo wax qabad iyo karti intaba okay adiga halkee ku baratay kaamil woman inaa noqoto ama macaalimad aan noqoto dadka wax soo saara aan noqoto halkee ku soo baratay aad iyo aad aniga wax ku bartay muqdisho wax ku bartay markii hore tan yani sanadkii 2012 waqti waxa isoo maray ah xirfadan oo maanta ku shaqeeyo ee cameramanimada iyo editingka iyo web designerka aad u jeclaa horta markii hore tabo jaceelka u qaban wuxuu igaarsiiyay heer aan selfiyan isbaro oo yani qaab online ah bagaas aad loo ma aqoon xitaa computer ma aan haysan oo 2012 waa ogtaa social media xitaa meesha naga taagna in loo ka ahayn marka waxa jirtay casharo oo youtube-ki waxaas laga soo dejiyo waxa isku training gareey jira casharadaas inaan barto in aan isbaro kadib waxa arkay seminaaro la xiriiro waxyaabaha graphic design-ka seminaaradii ku biiray waan bartay seminaarada markaa bartay qaybtii daabacaada aan meel saaray waqti dambe 2017 haddana waxaa sii waday inaan sii wato xirfadeedii ahayd cameramanimada iyo editingka kadibna waxaa sii bartay web design-ka alxamdulillah maanta waxaa leeyahay 3 xirfadood leh oo ku shaqeysta aan dhahay 4 sorry xirfad waxaa jirta waan igu soo ziyaaday 4 xirfadood leeyahay iqraahan xirfadeedu kooda waxa waaye inay camera woman xirfadeedu waxa waaye inay ahay editor xirfadeedu saddexaad waxa waaye inay ahay designer xirfadeedu afaraadna waxa waaye inay ahay dadka yani maamulo ama xiri karo CC kamerada xirfadeedu shanaadna waxa waaye macallinimo aad ugu shaqeeyo aad ayaan u faraxsanahay gabar inta soo xirfad lah hadana inay ku sugan tahay magaalada Muqdisho waliba waxa aad u sii jeclahay xirfadooyin badan oo waliba dumarka aad ugu yar yihiin inaa sii barto si ay ugu dhiirigeliyo in u noqdo aniga yani role model inaan ku noqdo maxaa yeelay qof kasto bini'aadan qof uu ku dayda waxaan jeclaa mar walba aniga gabdhaha Soomaali inay aan noqdo qofkii ku day lahaayeen inaa shaqooyinka ee islaahin waa ka xishoonaysin ima qaba kartaa way adigii inaa u bilaabo jeclaa insha Allah oo wax dhaxaltooyo oo runtii waxa xasuusina ka tagaa jeclaa qof waliba oo guul gaara ama horumar sameeya qof oo yaa garabkiisa taagan ama waalid ha ahaado ama lamaanaha ahaado ama walaal ha ahaado adiga guusha ayaa ka dambeeyay inay garto aad ama santaay qof kasto guul gaar sax waa qofka ka dambeeyo waliba naftiisa ugu horeyso qofka adu isaga yani rabin inuu guuleysto qofka guuleysan karo yani qofku waxa muhiim marka wad guushina isaga u baahdo inta kadibna guushu waxay rabtaa garab istaag iyo qofku gaarsiiyo oo kula fahmo yani hamigaada iyo meesha aad u socotid ka iqra ahaan guushan maanta agaaray mid agaari doonaba waxa ka dambeeya runtii familkeeya waxaan ka istaa garab istaag iyo dhiirigelin iyo dhan walba facility iyo fududeeyo marka asaasay company-gan igu garab istaagay ilaa maanta waan i garab taagan
waxaa aaminsanahay gabar walba oo Soomaaliyeed yani haddii ay haysato family garab istaago ama say wanaagsan oo garab istaago ama walaal wanaagsan oo garab istaago inay guuleysan karto wax badan ay qaban karto bulshada u shaqeyn karto wax badan ay kusoo ziyaadin karto. markaad bilaaweysay xirfadaani oo ah camera woman waalidiinta xaggooda caqabad ma kala kulantay in lagu dhaha risk waaye noloshaan ma geli kartid dhibaata kaa soo gaaraysa ama arinta aniga rageed waaye ma jiraan xagga familiga? may runtii familkeeyo runtii waa kuwa mar walba i garab istaagsan maxaa yeelay maanta haddii garab istaagsanaaleen ilaa heerkan maana soo gaareen marka familkeeyo waxaa dhihi karaa waa kuwa i garab istaagsan waxa qabado xagga familkeeyo kala kulma ma jirin. marka aad munaasabadaha wax ka duubeysaan ee dhinaciina taagan yihiin ragga tusaale ahaan xalfadaha dowladda kale dabcan waa idin la soo wacaya waxaa jira xalfado kale oo si gooni loo kala xiiseynayo dabcan adiga mar un waad kulmaysaan adika iyo wiilasha camera womanada maxaa dareentaan markaa dhinaciina wiil cameraman ah uu taagan yahay wax ka duubayo ikhla ahaan? su-aal muhiim waaye waxaa jirta waqtiyada dadka cameramanada isku imaadaan marka laga soo tago aroosyada waxaa kamid ah waqtiyada aad duubna xafladaha jaamacadaha xaflada jaamacadda Banaadir oo kale hadday gacanteeda ku duubaayay waxaa joogeen rag badan oo TV-yaal ka socdeen qaar keebala ka socdeen qaar meelo caadi media ka socdeen waxaa ahaa gabadhi keliya maalintaas taagneed ee wax duubeysay jaamacadda Banaadir xafladeeda ka dhacday Sahal Terminal 2019 markaas oo kaleeta yani waxaa dareemeynaa yani ka dumar ahaan inaan ragga wax la qaybsanay oo booska gabdhaha aa buuxinay mar haddaa meesha ka muuqano farxadaa dareemeynaa oo dhinaca ragga aad taagan tahay aad iyo aad farxadaa dareemeynaa waxaa dareemeynaa inaa dadka wax la qaybsanay oo boos banaana aa buuxinay waxaa muhiima mar walba qof walba dumara bulshada booska banaan inuu buuxiyo. markaas aad taagneed meeshaasi bulshada Soomaaliyeed sidee idinkaga falceliyeen? tusaale xalfadaas ayaan daba kacayaan markay arkeen adigoo cameraman dhinaciisa taagan gabar ah maalintii oo dhanna taagneed bulshada sidee ugu falceliyeen hadalkaas? aad iyo aad wallahi bulshada hadda caqabad ma kala kulano way nagu dhiirigeliyaan mar walba in arkaan waxay dhahaan waxaa tiin gabdhihii ugu horeeyay aragno ee Soomaali wax ka duubo aragna ayagoo camera wato wax duubaaya marka meeshaas kelmadaas kaliya yani gabadhii ugu horeeyay aragno waxaa dareemay dhiirigelina dareemaysaa ina team kala soo saarto waxaa kaloo dareemay inay jirto baahi oo yani yaraasho inay jirtaa dareemaysaa oo loo baahan yahay in teamka la soo saaro oo baahi kala jirta la buuxiyo. inta shaqadan ku guda jirteen waxyaabihii ugu yaabka badnaa inaad gacanta iyo madaxa isa saarato aad dhahdo wallahi waxaan filayo ma ahan ama ku gaarsiisay heer xirfadaada xoogaa yar inaa aad dhahdo ma jiraan? maya runtii maadaama waxa aan ku shaqeynay yihiin horta xirfad maadaama ay yihiin xirfadu mar walba waa wax gacanta laga qabto aqoon u baahan wax oo problem oo xirfadeena inta ku shaqeynaa kala kulanna ma jiro kaliya waxaa jira waqtiyada aroosyada aad duubeeno waxaa aad dib ugu qabnaa taleefanada yaryarka Snapchat iyo waxyaabahaas oo dumarka ay adeegsadaan moobiladooda ku duubaan oo yani ka qayb qaadanayo foolxumada arooska yani maadaama qof walba moobil istaagayo halkaas caqabadna waxaa isdhihi karaa waa wax bulshadii yani ayagii hadda ilbaxnimo u ah moobilkan wax ku duubaan marka caqabadaas marka laga tago oo yani dadka arooska xilliyada arooska wiilkii gabadha soo galayaan dadka inta badan moobil istaagaan oo arkaysa inay ku duubaan marka qaar salaada xitaa shaqada kula qabanaya waayo warkii oo Snapchat-ka dabcan gabdhaha markii xaflada arooska la tago kale waa la isku qabtaa aad iyo aad marka moobiladaas ma ahane wax kale caqabad oo xagga xirfadeena kala kulanna ma lahan. dabcan magaalada Muqdisho waa ay waji badan tahay aad ay waji badan tahay waxa ma jiraan maxallaha inta Muqdisho ku sugnaydeen hadda kaliya waxaad ku eegtaan dabcan Muqdisho ma jiraan gobolada Soomaaliya meel aad tagteen ama aragtid hadda kadib inaad ka furto company? aad iyo su'aal muhiim waaye Gobolig Media Production Company xarunteeda ugu weyn oo la aasaasay maanta Muqdisho ku taala gobolada dalka iyo dalalka deriska waa rabnaa inaan tagno laakiin waa u tawaashaysanona insha Allah yeerkan maanta 2020 dhamaanayo wixii ka dambeeya waxa u tawaashaysanona laba arin oo ugu muhiimsan oo ah mid koowaad inaan soo kordhino decoration holiska holiska waxaas naqshadeeno dadka u diyaarino yani lamaanaha meelo oo xeebaha wax noocaas waqtigooda ku soo qaataan oo meesha wax uga soo duubno
waxaa kaloo yani yeerka cusub u diyaar garoowna kamid ah xarumaha kale inaa furno oo gogol dhig ah oo gobolada inaa gaarno dalalka dariska inaa gaarno waa ognaana baahi badanaa ka jirto wada goboladii kale aada u horumareen hoteelaa laga fura mar haddii meesha hoteel laga furana aroos waa lagu dhiganaa marka waa rabnaa inaa gaarno insha allah waana ku rajaweynaani insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka miro dhaliso taas iyadana dabcan waxaa jira hoolal ah adiga ku xiran tihiin gogol dhig kaas ay u leeyihiin ama ay ku xiran yihiin ma jiraan oo idinla soo wacaya ayaga markii la kiraysto idin lahayo soo booda ma jiraan aada iyo aad macaamiishiina nigula imaadaan dadka arooska ayaa xaruntiina idinku imaadaan aada iyo aad macaamiisha laba qeyb ay u kala baxaan waxaa jira hoteelo aada leenaan xiriir waxaa jiro runtii dhiirigeliyo oo mar walba aroos oo qof u imaado dhaho gabdhaheena wax duuba aroosyada oo nagu soo xiraa jiraan dadka qaarna ayagaa waxay noogu imaadaan xarunteena oo waxay naga soo xiriiraan social mediaha qof oo sidaadoo kaleo mataqaanaa nagu soo xirto kasta markeena intaasay u qaybsamaan musiga xagga musica ama dj-yada waad aragta arooska waa la shida heesaha adika ma wato mise hoteelka iyo hoolka ayaa loogu imaadaa wallaahi dj-yaasha inta badan howshaas waxaa iskale hoteelka iskale hoteelka isagaa dj wato aroosyada inta badan wadaadada aduubna dj-ga banaanka laskaga saaraa qalabkii wixii sidii loo maamulayo wuxuu tusaa gabdhaha kaamirmaanada ayagaa howsha sii wadaan laakiin anaga kagooldhig ahaan ma jirto wax dj oo la kuleenaana maku rajeynaysa mise maku tala jirtaa inaad sameyso wax dj ah maya runtii maku tala jirno maxaa yeelay dj-ga waxaawaa sameecado waaye waxay rabaan in la xamaalo iyo waxyaabo badan u baahan yihin marka gabdhuhu wax xamaali ma geli karaan marka waxaa leedahay dhinacaasi maku jiraan ugu dambeyntii barnaamijka qaybkiisa ugu dambeeya ayaan isla soo gaarnay gabdhaha maxaad kula dardaarmi lahayd gabdhaha soomaaliyeed waxaa kula dardaarmaya runtii baahida bulshada way badan tahay anaga gogol dhig ahaan iyo iqra ahaanba keligan ma buuxi karno bulshada meelo badan ay baahi ka qabaan oo waxaa jira ragga ay ku badan yihiin oo dumarkan ay ku yar yihiin gabar walba soomaaliyeed waxaa leeyahay baahida bulshada meeshay ka qabto buuxi haddii gabar walba ay barato nursing gabar walba ay barato medicine gabar walba isbitaal la taagnaato shift inay jeefato habeenkii yani waxaa ka qurux badan gabar walba inay la imaato ra'yi iyo hal abuur inay la imaato ee dhahdo xagee ka banaan gabar ahaan boos oo bulshada kaaga baahan tahay kadibna ay buuxiso maxaa yeele taas yani adduunkan waxay noo tareysaa aakhirana waxay noo tareysaa waxaa dhihi lahaa gabdhaha soomaaliya waxaa leedihin awoodaa leedihiin kartiyaa leedihiin raggaa wax la qaybsan kartaa siyaasiina hore u socda waxaa dhihi lahaa oo kale gabdhaha soomaaliya khaasatan gabdhaha it-da bulshada waxaa dhihi lahaa la dhiirigeliya maxaa yeelay bangiyadoo kale hadda waxaa arkaysaa gabdhaha inay aada u yaryihiin bangiyada qaarna maba u shaqeeyaan wax gabdha ahbo ma aqaani sababta gabdhuhuna it way bartaan maalin walba jaamacada way ka qalin jebiyaan dabcan way bartaan waxaa jira gabdho badan oo aqoon-yahano oo guryo fadhiyaa jiro marka waxaa dhihi lahaa yani ragga maamulo meelaha bangiyada iyo organisationada iyo shirkadaha gabdhaha kaalintooda siiya dhiirigeliya runtii gabadhu adinka idinka timid adinkaan idin dhexday yani adinkaan dhali doono nin walba uu jecel yaha walaashiisa ama xaaskiisa ama gabadhiisa inay horumarto marka waxaa dhihi lahaa gabdhaha dhiirigeliya waxaa kaloo dhihi lahaa runtii gabdhuhu naftirkooda yani yaysan dhihin shaqadan way adagtahay yaysan dhihin wax adduunka fudud ma jiro shaqo fudud ma jirto qofki isaga yani su iska dhaadhiciyo waaye iyo siduu shaqada u qabto waaye soo hadhihin shaqadan fududa waxaa ka fiirsaa shaqadan adiga ma jeceshahay haddii adigu shaqo aa heli weyso ceeb ma ahan adiga abuur shaqo maxaa yeelay midda qof u shaqeynayso waxaa ka fiican midda adiga lagu shaqeynayo ka fiican sidoo kalena gabdhaha waxaa leeyahay runtii guuleysta oo mar walba yani aan noqon gabdha caalamka la tartamo meesha gabar ee luku leedahay xaqiiqatan wax la ogyahay waa nimanka raggan way ogyihiin meesha gabar luku leedahay ama shirkad ha ahaato ama organisation ha ahaato ama hotel ha ahaato ama meel kale ha ahaatee waa meel ka qurux badan meelaha kale waa meel kasoo jiidasho badan meelaha kale wax kalena maahane gabdhuhu mar walba waxay fiiriyaan maxaa qurxan maxaa dadku soo jiidanayo maxaa yani meeshaan oo hore ugu socon kartaa waxyaabahaas ay fiiriyaan halka ragga ay fiiriyaan howshaan ma dhib yar tahay ciyo ma soo dhamaaneysaa
waxaan dhibakee ka bateen iska dhaafayaan lacag badan ku bixaysa ama qarash badan ama daal badan idinka galay meesha ay fiiraan gabdhuhu ma fiiraan kaliya waxay fiiraan maxaa qurxan maxaa yani meeshaan dadka soo jiidanayo marka waxaa leeyahay kulama gabdhuhu jaaniskooda la badiyo oo meel walba ay ku yeeshtaan kulama bulshadu ay qurux badnaato waay kulama bulshadu ay dalku uu hormaro waay waxyaabaha dalkan dib u dhigaa waxaa kamid ah kaalintii gabdhaha u maqanbo marka waxaa leeyahay bulshada Soomaaliyeed ay iskarabsano gabdhahana kaalintooda hala siiyo runtii barnaamijyada yani oo TV-yada xitaa sida Shabeelle oo kale oo habeenka loo qabanayo naftirkiisa waxa ka qayb qaadanaa horumarka gabdhuhu ka qayb qaadanaa aad u mahadsantihiin adinkana aadeen kaaga mahadcelinayo waqtiga iyo qaaliga aad soo hortay aad u mahadsantahay soo dhaw markale Shabeelle soo dhawaada taasi waxay ahayd gudoomiyaha Goboldhig Media Company Iqra Cabdulle Guure aad ayaan u mahadcelinaynaa waqtigeeda aad noo soo hortay halka naga daawanaysan waa Shabeelle TV barnaamijka inta ayaan ku soo keen doona barnaamijka waxay idin la socodsiinaysaa aniga ah Shukri Nuur xagga farsamada waxa iga saacideynaya Maxamed Yare kan mid lamida inta aan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo